ماشي ku-xigeenadii hore taliye ku-xigeenka trotaariyada taliyaha xerada konton iyo afraad isimka uqaasha waxgaradka kale saxaafadda dhammaan taliyihii halka ka tegay laftigiisa ha loogu sii daro waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu سلام كدب وحا مهد اسكالا إلهي اسكو كان قوبتان oo ah goob xil wareejin waxaan leeyahay gudoomiyaha cusub soo dhawow waxaan leeyahay gudoomiyaashii hore ee xilka wareejiyay waa mahadsantihiin wixii aad soo qabateen dalkiina iyo dadkiina soo qabateen la shukr cala waajib xilkuna waa meerto berina shalay kuwaad ka qaadeen baa haddana in kala wareegay berina waa idinka waa la wareegi doontaan waxaan leeyahay laba qodob oo muhiim ah inaan halkan ka sheego intaan labada qodob sheegin waxaan u tacsiyeedinayaa walaalkay Allah u naxariistay Cabdisalaam Xasan Xirsi Bujir oo saaxiibo dhow aan ahayn oo iyo qaraabada waxaan leeyahay ilaahay godka ha u nuuriyo hana la cafiyo dembigiisana Allah dhaafaan leena gudoomiye sida agaasimaha guud u sheegay waxaa tahay gudoomiyaha guddiga amniga gobolka ahna isku xidhaha gobolka iyo degmooyinkiisa chairmanka guddiga amniga sida khamiislaha madaxweynuhu u jeergareeyo shirka khamiista waxa lagaaga baahan yahay adoo la tashanaya gudoomiye ku-xigeenadaada iyo isku duwahaaga in ay sida ay tahay iskula xisaabtantaan sida aad sheegtay waxaan leeyahay arrimo waaweyn baa jira shirkan halkan inuu ka dhaco holkan yarka ama ahayn wuxuu jebiyey qodobadii madaxweynaha iyo guddiga aan ka mid nahay aan soo saarnay in meelashan oo kale lagu qaban karin shir intan oo kale isugu imaan karin haddii la isku imaanaya meel ka weyn la isugu yimaado waa in la caddeeyaa shirkan oo kale hadda laga bilaabo intan oo kale kama dhici karo halkan oo kale yarna lama fariisan karo waa inuu noqdaa meel weyn sidii amarka madaxweynuhu uu nagu faray waxaan leeyahay oo kale maadaama taliyaha qaybta inuu kacama ahayn waxaan uga faa'iideysanaynaa arrimaha amniga iyo amaamiirta la soo saaray waxaan moodaa dadkiina in la xareeyey hudheeladiina hoosta laga xidhay hudheelada keliya lagu xareeyey dadkii masaakiinta ahana guryaha la geliyey taas macquul maaha إما دتك وإنه وصلنا دكان يريرا يمالي يريرا يوحي يريرا ولا حرحري وحي هنتي يحوق لها أنا وفريهم هذا سداس عدالة الدهر نقول سيعدله هو أقرب للتقوى تصبح نقول سعدالة الدهر إن هذه يريرا دتك مساكين تأنو حدنا نمانك هنتي لياشا هاي سيك يخريق لها أنا وفريهم أنا وافدنا دلوا ولا وفديا وفريهم وعبن lama diidin in cuntada ay kariyaan oo dadka ay tayaaway ku qaataan laakiin waxa la diiday in la fariisto dhamaan waa furayeen hudheel waaweyn oo dhan waxa dhibaatada kale ay noqotay qaadki oo ay ciidamadii hormuud u yihiin siba ciidanka daraawiishta qofkii kii watay ayaa ka dafay jeebka xitaa si gashanaya midkii masaakiinka watay intay si ka sii dafaa isagu jidka madax xoog uga qaadaan isagu si xitaa guuymaayo waa sii qaadanaya waa mushkiladaha jiray ka mid tahay ciidanka daraawiishta oo ina kala joogo taliyaha ciidan xerada konton iyo afraad waxaan codsanaynaa saraakiisha annagoo guddiga amniga ah in hawshaa wax weyn laga qabto xalayna waxyaalihii dhaliisha oo ka soo jeediyey madaxweynaha ayay ahayd waxaan kaloo boorinaynaa shaqada ay hayaan ciidanka booliiska isagoo ahayn ciidan ku filan iyo degmadu haddana xagga waxyaalaha jira way kaga fiican yihiin daraawiishtu isagu baabuur ku soo raraya uu soo qaadaya uu soo gudbinaya hadda meesha goobta qayilaada waxay noqotay tuulada la yiraahdo buuro wadal kama mid aha miyaa booliisku ma xukumaan miyaa gobolladu ma xukumaan miyaa gudoomiyaha gobolka sool iyo degmada boocame labadaas waa ku dhaliilan yihiin
in ay buuro wada noqoto goob qaad iyo taliyayaasha qaybahooda kala duwan iyo in uu jeegarayo laga rabay taliyaha ciidanka booliiska sababtoo ah iyaga ayaa laga rabaa waxaas oo dhan inay ilaaliyaan meesha qaadku kasoo burmayo lagu qayilay magaaladu halkay aadana waa halkaa in wax laga qabto waa muhiim waana faraynaa in wax laga qabto haddaanu nahay guddiyada kala duwan ee dowladda waxaan leeyahay waa mahadsantihiin guddoomiye halkan waxaa jooga laba nin oo ilaa dowlad hoose isuduwaha iyo qaasim oo ah khubaro min alkhubaraa gobolka nugaal oo in badan soo fadhiyey ilaa dowlad hoose ilaa iyo guddoomiye ku-xigeen waxaa loo baahan yahay inaad ka faa'iidaysatid la tashatid madaxdu 3 arrimood bay noqotaa nin tiisuu qarqooran tahay oon cidna la tashano isagu wax walba isku koobo keligii la yiraahdo nin wuxuu noqdaa nin intuu talada dadka iskugu keeno oo la soo hor fariisto iyo maxaynu ku tashanaa ka bacdina waxa lagu tashado fuliya ninna wuxuu noqdaa nin cid dibadda joogta ay u taliso oo dad dibadda jooga soo barogaraamiya xafiiskiisu la fariistaa halkaas ka dhaqaa waxaan ku rajaynayaa noqotid xafiiskaaga nin la tashada ra'yiga dadka la dhageysta ka bacdina ay amaawiirtiisu ka soo fasho ayaanu kugu rajaynayaa waa mahadsantii